kadib burburkii ku yimid dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dagaaladii sokeeye ee soo maray dalka ayaa dhibaatooyinka iyo raadadka ay geysteen dagaaladaasi oo ay ka mid ahaayeen baabi'i iyo burburkii ku yimid shacabka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale muuqanaysay caqabado iyo culaysyo soo wajahayay madaxda iyo mas'uuliyiinta iminka talada hayso iyo sidoo kale kuwii ka horeeyay taas oo ay madaxdu ku adkaatay xal u helidda waxyaabaha ay kala tabanayaan bulshada ay maamulaan. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka ay saameynta ku yeesheen dagaaladii soo maray dalka iyadoona shacabku ay ka dhaxleen in ninba ninkii ka xoog badnaa uu ka qaatay hantidii uu lahaa haddii ay ahaan lahayd guurto ama ma guurto. maamulka Jubbaland oo ka mid ah maamulada Soomaaliyeed ee la daaladhacaya xal u helidda masiibooyinka ay reebeen dagaaladii sokeeye ee soo maray dalka ayaa shaaca ka qaaday in caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan haysto maamulka Jubbaland ay ka mid yihiin isqabqabsiga dhinaca dhulalka ee ay isku hayaan shacabka reer Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada Jubbaland. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo dhawaan soo saaray wareegto dib loogu dhisayo adeegyadii garsoorka maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xilligan haysto Jubbaland ay ka mid yihiin arrimaha isqabqabsiga dhinaca dhulalka waxaana uu sii raaciyay in maamul goboleedka Jubbaland uu dib ugu noqon doono naqshada magaalada Kismaayo waxaana uu shacabka ugu baaqay in ay sugaan sharciga waxaana uu hadalka ku daray in ay sameyn doonaan ciidamo boolis oo ay shaqadooda noqon doonto ilaalinta dhulalka ay boobiyaa shakhsiyaadka. annaga hadda deegaankan aan joogno waxaan u maleynayaa wareegtan soo saaray dhibka ugu badan ee jira wuxuu noqday dhul iyo mushkiladiisa iyo shidadiisa waxaan go'aan ku gaarnay inaan muddo 2 bilood lagu dhiso adeegii garsoorka si loo helo garsoor hufan oo shaqada dhabta ah ee dadka ay u baahan yihiin qabta oo cidda naga caawinaysana ay naga caawiso. waxaan hadda u sameeyay dadweynaha maalmo aan la kulmo cabashada ugu badan dadku ay ka hadlayaan waa dhul ama iyagu ha isdulmeen ama askari waana dulmeen ha la yidhaahdo ama maamul ha ka sheegteen ama ninba nin kale ay riixa ha yidhaahdo ama waan kaaga soo horreeyay ha la yidhaahdo dhibka ugu badan ee maanta dadweynaha intaan la kulmayo aan ka arkayo waa cabashada dhulka iyadana aan horeyna u sheegnay dhulka dowladda iskale sharciyaad ansixiseen kuwa kalean soo wadnaa naqshada magaaladan aan ku noqonaynaa dhulka dowladda iskale hantida qofku uu leeyahay shakhsiga ah yaa loo ogol yahay inuu lahaado waxbaan iska ootadan iyo waxan qof walba shuruucdu iyo sharcigu wuxuu u ogol yahay baa la siin doonaa inay dadku waxaan dhulka lagu tartamaya la boobayo intii la joojiyo qof waliba uu ilaahay ku xamdiyo oo sugo waxa uu yeelanayo waxa la siinayo sidaa loo yeelo sababahaas daraadeed baan waxaan u sameynay inaan bal dadkana ogaano baahidooda lana kulanno bal waxa caqabaadka ay jira adeegaa garsoorka iyo u sameyno weliba ciidan gaara oo dhulka keliya la dagaalamana aan u sameyno oo boolisa oo ama kuwa isdulmaya ama kuwa dowladda dulmaya ama kuwa mas-uuliyiinta dowladda wax ka sheeganaya kulligood iyagu wax ka qabta oo ciidamada kala dhexta ay ka baxaan inaan intaana u sameyno waxaa sababaysay cabashada dadweynaha ka imanaysa markaan arkay yaan taa qaaday. si kastaba ha ahaatee muddooyinka ugu dambeysay ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan maxkamadaha gobolka iyo degmada ee magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayay buuxbuuxa dacwadaha ku saabsan dhinaca dhulalka ee ay isku haystaan shacabka reer Jubbaland waxaana hadalkani ka soo baxay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo noqonaya midkii ugu horeeyay ee ku aadan dhinaca dhulalka iyadoona la sugayo tilaabada uu qaadi doono maamul goboleedka Jubbaland ee ku aadan arrimaha dhulalka. maxamed qaasim cali waxar TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Kismaayo.